بسم الله. marka hore waxaan salaamayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wasiirada maaliyadda iyo cadaaladda madaxda bangiyada ganacsiga madaxda ururka bangiyada Soomaaliyeed iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay xafladan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullah salaamka baadi waxaan aad ugu faraxsanahay ka qaybgalka madashan aynu maanta isugu nimi oo ah kulan weynihii ama shirweynihii ugu horeeyay ee uu soo qabanqaabiyo ururka bangiyada Soomaaliyeed oo sidii mas'uuliyiintii ugu horeysay halkan ka sheegeen hadda jiray muddo 7 sano gaaraysa waxa iyadana xusid mudan in bangiyadeenu ay yihiin oo sida badankiina ogtihiin bangigii ugu horeeyay laysan ka qaato bangiga dhexe waxaa la siiyey 2009 waxaan u malaynayaa 2 sano kadib inay qaangaad da'da lagu qaangaaro buuxinayaan maanta waxay maraynaa alxamdulilah inaan leenahay 13 bangi oo bangiga dhexe ruqsad siiyey isla markaana kor joogteeya oo u adeega bulshada iyo ganacsatada Soomaaliyeed waxaa la soo maray duruufo aad u badan dalku taariikhda cusub ee Soomaaliya duruufaha dhibaatooyin badan leh oo isugu jiray kuwa amni iyo kuwa duruufo dhaqaalaha ama abaaro ama kuwii ugu dambeeyay imika 3 sano ugu dambeeyay ku jiray xanuunka safmarka lahaa waxaas oo dhan waxaynu kaga baxnay runtii dadaalka ay wadaan ganacsatadeenu oo bangiyadu ku lahaayeen door aad u adag waxaan isku wada raacsanahay in meesha mar walba aynu ka noolaan hadaynu nahay dadka Soomaaliyeed ay tahay ganacsatada ganacsina ma jiro dhaqaalana ma horumari karo haddaanay jirin hay'ado maaliyadda ka shaqeeya oo hantida dadku ku aamini karaan sida bangiyada oo kale bilowgii waxaan lahaan jiray xawaalado waxaa ku xigay inaynu yeelano telefoonno bangiyaha soo raacay hadda waxaan u gudbaynaa inaan qaybihii kale oo laga maarmaanka u ahaa adeega maaliyadda sida microfinance-ka hay-adaha ay gargaara ka mid tahay oo iyaguna door muuqda ku leh inay markaa qeybtooda ka qaataan dhaqaalaha mas-uuliyadda bangiga dhexe waa wada garanaysaan marka laga tago inay u sameeyaan xeerar iyo xeer nidaamyayaal hay-adaha maaliyadda waxaa kale oo ay ka saaran yahay xil sidii ay u kobci lahaayeen dhaqaalaha gaar ahaan qeybta kaga aadan oo bangiyadu haldoor u yihiin sanadihiina dhaafay bangiga dhexe wuxuu ka shaqeeyey runtii dadaal badan geliyey inuu doorkiisa ka qaato sidii u kobcin lahayn bangiyadeenna oo ah maanta madashan aynu fadhino inaynu doorkooda ka sheegno 4 qaybood ayuu u badnaa reformka bangiga dhexe waxa uu xooga saaray qaybtiisa ugu horeysa waxay ahayd inuu bal horta bangiga dhexe laftiisu dib u habeyn isku sameeyo waxaad cid wax tari kartaa ama adeeg siin kartaa marka aad leedahay aqoontii iyo qalabkii iyo dadkii dadka aad ugu adeegi lahayd sectorka sida bangiyada oo kale
marka waxa juhdi badan gelinay runtii in aan helo dad leh xirfad tiknoolajiyad iyo qalab casri ah iyo nidaam aan ugu adeegi karo sectorka hadday tahay bangiyada iyo guud ahaanba financial sectorka marka la isku qaado arrintaa runtii wax badan baa nooga qabsoomay alxamdulilah dadaalkaa badan ilaahay waa nagu guuleeyey waxaa maanta markhaati ka tihiin oo bangiyada madaxdoodii iyo mas-uuliyiintoodii intiina halkan joogta oo aan filayo inaad badankiinii joogtaan aada qiraysaan la falgalka shaqaalaha iyo kala duwan ee bangiga iyo xirfadooda halka ay joogto sidii ay idinku adeegi lahaayeen waxaa kale oo ahayd qeybta labaadan xoogga saaray in maadaama la dhihi jiray bangiyadeenu waa hadda tiro ahaan waa bateen 13 baa marayaan inay dhibaato ku qabeen dadka u adeegtaana ganacsatada iyo bulshooyintuba inay isku xidhnayn bangiyadu oo haddii laba ganacsade wax kala iibsanaya ay rabaan inay lacag isa siiyaan oo laba bangiyo kala duwan xisaab ku leeyihiin inay markaa lacag kaasha oo mararka qaar tiro badan ay markaa u kala qaadaan laba bangi oo runtii ahayd caqabad hortaagan kobaca dhaqaalahooda iyo adeegii hufnaayada bangiyada ay ahayd inay ka helaan oo kala dhiman marka waxaan u malaynayaa videogii aan hadda farsamadiisu inoo hagaagi weyday ayaa tusi lahaa waa jeclaan lahaa hadday suuragal tahay in iyar la tuso waxa uu yahay national payment systemku فذلك البنك وحكمتها البنك يوجد بنكي تاسو حكيمي زي ان مشاركة قفة وقاطو يعني قعدت أزوقها قعدها لعبت بطول سنة سيكولية لكن هذا بنك الفايرين مكان أو قيمة هاي أنا بوجي بجوري أو مشاركة يسوى أنا بوجي بجوري أنا بوكي أدركها أنا واحد بوجي الجريم الثلاث اللي ما قبل تاجي ولعب بعمل مسوقة ولعب لانس لعب الأمل اللي بيجرتا قصد يعني بتابع جيلا تابع منطقة مقاس معي لكن وحيد خلاص الوجود وحكم الآن مثلا عن يوم كان استعماله إذا يوم استعماله من كان وكان استعماله إن أنا عرفت أبو بيك bangiga dhexe ayaa markii ugu horreysay daafuraya hanaan cusub oo casri ah oo mideynaya dhammaan bangiyada dalka ka shaqeeya hanaankan wuxuu noqonayaa waraa cusub oo u horiyey habmaaniyadeedka waddankeena wuxuu hirgelinayaa nidaam isku xiraya lacag bixinta bangiyada taasoo sahlaysa in bangiyada lacago isku diri karaan ayadoo xafidan hanaanka lacag bixinta midaysan wuxuu ka mid yahay dadaalada uu bangiga dhexe ka wado horumarinta habmaaliyadeedka dalka sida uu tilmaamay guddoomiyaha bangiga dhexe cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi mashruucan ama kaarahan isagoo bangiga dhexe soo kulmay oo aan ugu magac bixinay hanaanka casriga ah ee lacag bixinta qaranka midaysan waxaa qeyb badan oo ilaa u leedahay المولدات تبقى يجب أن تتعرض القوانين سنة كل بطلع التصوير كل فقراء تبقى الجوهر يعني معنى الوضوء أوروبا صنعتها ولنا أمين bangiga dhexe waxaa ka go'an horumarinta kobcinta iyo ilaalinta xasiloonida habmaaliyadeedka dalka wuxuu jeexayaa dariiq cusub oo lagu kobcinayo dhaqaalaha dalka loogana faa'iideynayo shacabka Soomaaliyeed horumarka oo bangiga dhexe u horseedayo dalka kala soco bartooda internetka
sawirkaa kooban ayaa runtii soo ururinaya waxa uu yahay national payment systemku maanta waxaan leenahay 13 bangi oo isku xidhan oo u adeega dadkeena waxaan ku dari doonaa dhawaan oo insha Allah sanadkan gudihiisa arki doontaan qaybo dhamaystiraya kaabahan bangiyada dalka ay maanta isticmaalaan qaybta ugu horeysa waa national switch payment switch oo markaa iyaduna isku xidh u samayn doonta qaybaha yaryar aan wali isku xidhnayn sida ATM-ka lacagta lagala baxo inaad kaadhkaaga ku isticmaali karto ka soo horbaxa oo aanad ku xidhnaan bangi gaar waxaa ka mid ah national QR code ayaan insha Allah sanadkan gudihiisa keeni doonaa oo isaguna markaa sahlaya instant payment wax loo yaqaan meeshaad maraysaba adigoon cash isticmaalin inaad bixin karto wixii aad lacag u baahan tahay inaad bixiso haddaad dukaan ku jirto haddaad mobile wallet-kaaga isticmaalayso haddaad card waxaan la yidhaahdo digital card ama warqad ay barcode leh oo account-kaagii toos uga baxayso lacagtaadu inaad meeshaad doonto waqtigaad doonto aad bixin karto payment samayn karto marka waa inaan standard baan u samayn doonaa waxaan la yidhaahdo national QR code dalka oo dhan oo ay cid walba ku xidhanto bangiyo iyo hay-adaha kale ee ka shaqeeya paymentska iyo lacagaha dhammaantood oo markaa suuro gelinaya interoperability ama inaanay caqabad kugu noqon inaad la raadsato lacag bixinta meel bangigaaga calaamadiis ku qoran tahay inaad raadsato ay markaa ku furaato insha Allah sanadkan gudihiisa ay rajaynaa inuu noo suuro galo waxaan kala automate gareynaynaa hawlaha yaryar ee inoogu dhiman payment systemka si uu degdegsiiyo u helo lacag bixintu waxaan noogu xigi doonaa insha Allah 24 hour instant fund transfer oo markaa qofku habeen bar hadduu u baahdo inuu isticmaalo bangigiisa ama lacag diro ama kharash bixiyo ay u suuragal tahay waqtigii uu doonayaba inuu sameeyo isagoon cash isticmaalin qaybta saddexaad ee runtii aan xoogga saaray anigoo waqtiga ilaalinaya waa idinku dhaqsanaya waxa weeye xagga sharciyada iyo xeerarka iyo xeer nidaamyayaasha bangiga dhexe wuxuu soo saaray muddadii uu intii dib loo yagleelay ka dambeysay 9 regulation ama xeer nidaamiye iyo 6 waxa aynu naqaano guidelineska oo bangiyada u gaara 15 kaas oo bangiyada u gaar yihiin iminka wuxuu gacanta ku hayaa hal xeer nidaamiye iyo 3 sharci oo laba ka mid ah insha Allah aan rajaynayno inay dhaqso ugu soo gudbiyaan xukuumadda dabeedna ay markaa maraan nidaamkii lagu sharciyeyn lahaa mid waa sharciga nidaamkan payment systemka oo runtii wax badan sii horumarin doona marka la ansixiyo sharciga labaad waa sharciga takaafulka ama caymiska oo isaguna ah qayb aada muhiim ugu ah financial sectorka oo maanta aan sharciyad la jaan qaaday waqtigan aan joogno lahayn waxaa intaa dheer qaybta afraad oo aan aada xoogga u saaray xagga reformka bangiga waxay ahayd qaybta la xidhiidha adeegyada inaga dhiman bangiyadeena had iyo goor waxaan ku canaananaa inay kordhiyaan adeega ay dadka siiyaan bank shaqadiisu waa inuu maalgelin sameeyo ama si ganacsiga dalku u kobco maanta marka la isku soo duubo dhammaan 13keena bangi financingka ama amaahda ay bixiyaan ama maalgelinba dhaho waxa weeyaan 20% marka asadkooda loo eego aad iyo aad bay yartay waddan inala midihina ma jiro baahi aad u badan bayna u qabaan ganacsatadu in la siiyo maalgelin ama financing billions baa lagu qiyaasay assessmentnadii u dambeeyay la sameeyo baahida aan la daboolin ee ganacsatada yaryar iyo ay u baahan yihiin oo aanay ka helin bangiyada bangiyadeenu waa liquid oo hanti badan bay haystaan lacag la-aan ma hayso laakiin waxaa jira caqabado markaanu weydiino nidhaahno maxaa
u sababa inay daynkana bixinaysaan yaraado caqabadaha jira oo qaar dhankeena ku xidhan dowlad ahaan in wax laga qabto ayay had iyo goor xoogga saaraan haddaad eegto wadamada dariskeena access to credit private sectorka waxa weeye waa boqolkiiba 5 Kenyada inagu dhegan Tanzania iyo Uganda waa boqolkiiba 15 ilaa 20 wadamada inaga waa less than 3% GDP-da GDP-da marka loo eego wadanka waa boqolkiiba 5 GDP-ga Kenya ayay la eg tahay access-ka to credit inaga waa less than 3% marka loo eego GDP-dan daraasadihii la sameeyay waxay muujinayaan in baahi aad u badan loo qabo in ay helaan ganacsatadu wax maalgeliya maxaa hortaagan way badan yihiin waxa hortaagan banankeena runtii waa risk affairs aad bay isu ilaaliyaan inaan idan ku habboonayn ama lacag ka soo noqon doonin lacag la siin waa ku saxan yihiin in a way laakiin iyagu waxay gar ku leeyihiin oo ay had iyo goorna weydiiyaan inay ka dhiman tahay kaabayaasha wixii sugi lahaa inay helaan xogta creditka inay helaan yani waxyaabihii u fududeynayay oo dowlad laga rabo sida shuruucda inay markaa ay bixin karaan amaah badan sidaa darteed qaybta afraad ee bankiga dhexaadda ku howlan yahay oo aan insha allahu rajaynayno inaad aragno midhaheedii sanadkan aakhirkiisa inta ka horeysa waxaa ka mid ah in aan yeelano credit information ama database dalku yeesho qofka ganacsadaha ama addoonka ah xogtiisa laga helo oo hadduu ama maanta qaato bangiga kale hadduu bangiga ku-xiga dhacay adigana ku yimaado inaad ogaan karto qofkeebaa ah qof la aamini karo ganacsadeheebaa ah mid ku jira liis aan wanaagsanayn oo aan aaminaada ku wacnayn waa xogaha u baahan yihiin bangiyadeenu in loo sameeyo keligoodna ma samaysan karaan waxaa kaloo aan insha allahu ka shaqeynaynaa inaan sameyno collateral registry sidaan idiin sheegay cid kasta oo laga hayo damaanad ama rahan in ay leedahay diiwaan database ay ka soo baxayso oo maanta gurigaa hadduu qof leeyahay aadan khasab ahayn inaad haysato subarloogadiisa ay caddahay xogtiisu database ay ku jirto oo qof waliba ogaan karo inaan 2 jeer guriga la isticmaali karin iyo ka badan haddii uu matalan jiro guri already dayn lagu qaatay oo kale ama anti guri ama dhul ama wuxuu doonaha noqdo waxaa kaloo aan iyadana ka shaqeynaynaa insha allahu waxaa loo yaqaan electronic verification system maanta national ID ma haysano markaan aano dadka maxaa kaa noogu furi weydeen maxaa usii kordhin weydeen had iyo goor ama maxaa KYC u kordhin weydeen waxaan la yidhaahdo inaad kastamihiina kala taqaaniinka balaayada wada ama lacaga dembi iyo dunuub lagu galayo ka shaqeynaya ka kale had iyo goor bangiyadeenu way dadaalayaan laakiin caqabad waxay ka muujiyeen cabasho waxay ka muujiyeen caqabada ka haysata inaan dadku lahayn unique ID dalkeena waa run dowladda oo dhan baa arrinta dadaal kaga jirta oo waxaan la socdaa in aad looga shaqeynayo laakiin inta laga gaarayo bal in dalku yeeshay national ID waxa bankiga dhexe uu hadda ka isagu bilaabay inuu EKYC wax la yiraahdo electronic verification u sameeyo oo iyaga dhexdooda database bankiga dhexe laga heli karo xogta qof kasta oo macmiil bangi ah biometric registration loo sameeyo dabeedna ay fududahay in dhammaan bangiyadu qofku marka uu yaasiin cibaar bangi u yimaado inaanu marna magac kala noqone fartiisaasoo qura markuu saaro la wada garto inuu yaasiin yahay weli banku doonaba ha tageen taa EKYC systemka la yidhaaho isagana insha allahu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aan hadda xooga saarayno ee ka shaqeynayno ugu dambeyntii waxaan iyadana hadda haynaa oo infrastructure-ka kordhinaya inaan wadanka u sameyno caqabadaha dibadaha inaga haysta
inkastoo baanankeenu korayaan inkastoo ay dadaalayaan inkastoo nidaam digital casri ah runtii oo kanaynu daawanay ka mid yahay iyo kuwa iyagu develop gareeyanba ku shaqeeyaan haddana dibadaha markay timaado weli dhib baa ina haysta waddankeena ma jirto cunaqabatayn dhaqaale ama bunuugta la xidhiidho saaran haddana markay damcaan ay la macaamilaan bunuugta adduunka waa caqabado badan baa jira gaar ahaan dalku dollar buu isticmaalaa dollarka waddan baa iska leh dhaqdhaqaaqa lacagtu wuxuu keenaa markaa in ay had iyo goor aanay u sahlanayn bangiyadana inay helaan bangiyo cusub oo ay la shaqeeyaan caqabadaha si loo adres gareeyo tallaabooyinka imika bangiga dhexe qaaday oo aan rajaynayno inay insha allahu meel gabagabaa noo marayaba waxaa ka mid ah in standardization loo sameeyo accountnadeena aynu qaadano system loo yaqaan IBAN system dhammaan bangiyadu markaa waxay yeelanayaan accountno isku mid ah waxaa u fududaanaya waxaan cross border payment la yidhaaho oo markaa ay ka mid noqonayno adduunyada leh hanaan lagu yaqaano lacagta meel laga soo diraa ilaa accountka ugu dambeeya ay galayso waxay wadamo Yurub iyo aad ba uga hergashay oo looga isticmaalaa wadamada Gulf Stateska Africa waa sidaa weli uma hirgelin laakiin inagu maadaama ay noo fududahay inaynu teknolojiyada cusub markiiba aynu adapt garayno waxaan rajaynaynaa inaan insha allahu degdeg noqono wadamada ugu horeeya ay u hirgasho waxaanaynu ku heli doonaa sumcad iyo magac badan in aynu xagga hore kaga jiro wadamada infrastructure-ka xoogga saaray haddii ilaahay ka dhigo taana sanadkan gudihiisaan rajaynaynaa ugu dambeyntii waxaan kusoo gabagabeynayaa bangiyadu sidaad ogtihiin maanta oo idinkan ilaha association-ka 7-8 sano maraya waxaa u muujiseen bulshada Soomaaliyeed inaad tihiin dad fahmaya isku xidhnaanta iyo in loo baahan yahay hal adeeg baa ka wada shaqeynaysaana in idinkoo tartamaya haddana wada shaqeyntu ay danta tahay dhaqaalaha iyo idinkaba halka waxaan doonayaa inaad xoogga saartaan waxa weeye fariintan maanta idinkaga tegayo shirar badan oo hore aan isku aragnayna aan idinkula dardaarmay waa inaad xoogga saartaan waxa loo yidhaaho compliance-ka la dagaalanka lacagaha dambiyada lagu galo illicit transaction noocay doona ha noqdaan ama kuwa xag jirka iyo dadka la midka ah ama ha noqdo mid tuugo iyo musuq lagu helay iyo xatooyo ama dembi kale oo mid lagu galay ha noqotee adduunyadu sharciyo adag bay ka samaysatay waxa qurayno adduunka isugu caddayn karaa ama ugu aynu iskaga celin karaa waxa weeye inaynu muujino inaynu nahay fully compliant bangiyadan taasna waxay u baahan tahay inaad kharash gelisaan aqoon gelisaan kharash maaha runtii waa maalgelin waa wax idinka faa'iideynaya dalkaba bangiga dhexena wuxuu diyaar u yahay inuu qeybtiisa ka qaato idinkala shaqeeyo waan soo gabagabeynayaa waxaan idin mahad celinayaa idin hambalyeynayaa mar labaad Somali Bank Association iyo bangiyada waxaan leeyahay hambalyo kulankan ama xafladan oo kalena insha Allah inay sanadle noqoto ayaan rajaynayaa. Assalaamu calaykum.